السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسو دو قيبتي أفراد تبارك صحافة وحدنا كلا صعوتا كورونتا ترينينجز وحنا وكسو بسنها قيبتا وريسيغا قيبتي سيلاباد سيدا بلانتو هاي قيبتي هورا وحينو تاقنيد oo aynu ku ballanay inaanu ka hadlayno habka qorsheynta wareysiga marka aad qaadaysid qorsheyso wareysiga marka koowaad marka hore mowduuca dooro marka labaad diyaarso cidii aad wareysanaysay kadib su'aalaha diyaarso ballan samayso haysaga tiin qofka adigoo aan la ballamin sidoo kalena qof aad iska aragtay wareysigaas kala boobin waa inay jirtaa sabab aad qofkan u wareysanaysid oo ay jirto muhiim waxa uu yahay qofkan maxaa yeelay telefoon baad wacaysaa qofkan ballan baad la galaysaa waa in ay jirto su'aal aad doonayso qofkan inaad ka soo saartid oo ay khasab tahay in loo helo haddii qofku laga maarmi karayo dee muhiim maaha wareysigaba haddaba marka intaa qorsheynta uga baxno waxa aynu geli doonaa oo aanu is arki doonaa waxyaabaha ay tahay in la sameeyo marka wareysiga la qaadayo iyo waxyaabaha aysan ahayn in la sameeyo marka qofka aad la ballantid ee aad xaruntiisa ugu tagtid ha u qaadeen wareysiga sidan waxaana ula fariisan qaabkan laakiin qofka haddii aad sidan ula fariisatid weli miiskiisa uu fadhiyaa habka dhaqdhaqaaqiisa baa socdaa wareysi fiicanna ma dhacayo waxaad qofka u wareysataa adinkoo isku hor fadhiya sidan marka wareysiga aad bilowdid ha ku bilaabin su'aal adag sidan mudane waxaan bilaabanaa wareysigeennii waxaa lagugu eedeeyey inaad lunsatay lacag badan oo dowladdu ay lahayd arrintaas maxaad ka leedahay laakiin wareysiga waxaad ku bilowdaa su'aal fudud oo qaabkan oo kala mudane waxaad iga warantaa arrinta ku saabsan qandaraasadii dalka ee ugu dambeeyey ee aad bixisaan seebaad ku bixiseen ha weydiin qofka su'aal xiran sidan ma isleedahay wax waa laga qaban karaa dhibaatada caafimaad ee dalka jirta laakiin u weydii su'aalaha qaabkan sidee wax looga qaban karaa dhibaatada caafimaad ee dalka jirta su'aashaadu yeesan dheeraan hubina in hal su'aal aad markiiba weydiisay oo su'aashaadu yeesan noqon sidan mudane waxaad qaadeen imtixaamaad ku saabsan shaqooyin loo gelayay habka qaybinta raashinka dadku cadaalad darro badan bay tabanayaan cadaalad darradaasna waxaa kow ka ah in dadkii hab qabiil lagu kala saaray oo dad badan oo shaqada inay ku soo baxday ahayd ay laga galay kaalinta koowaad aad ka bixiseen oo adinku hab qabyaalada aad ku bixiseen maxaad ka leedahay eedaas sidoo kalena bal waxaad iga warantaa yaa idiin qaada imtixaamaadkaas maxayse tahay cadaaladda qaabka aad ku kala xulataan dadka maxaase keena baad isleedahay cabashada dalkaas laakiin u weydii su'aalaha u kala weydii qaabkan mudane maxaad ka leedahay cabashada dadka ka imaanaysa ee ku saabsan in cadaalad darro lagu xulay dadkii ku soo baxay imtixaamaadka qaabkee baad ku xushaan dad ku guulaysta imtixaamaadka yaa idiin qaada imtixaamaadka ha weydiin qofka su'aalaha laga dhex akhrisanayo ama laga dhex arkayo xukun ama inaad adigu wax la taageersan tahay ama la aaminsan tahay waxaan leeyahay leading questions su'aalaha qofka wax ku hogaamiya ha weydiin sidan oo kale waxa tahay macallin wax ka dhiga jaamacadda waxaadna tahay professor ku takhasusay arrimaha deegaanka bal waxaad iga warantaa haddii aan wax laga qaban dhibaatadan dhirta la jarayo soo kulama aha in ay sii badanayso nabaad guurka iyo roob la'aanta iyo dhibaatada cimiladu dhirtan la jaraya iyo nabaad guurka maxaa xiriir ka dhaxeeya marka qofku uu jawaabayana yaan laga arkin oo aan laga akhrisan adiga inaad ku raacsan tahay waxa uu leeyahay sidan naasnuujinta hooyada sanadkan 60% aanu ka dhignay xagga sanadkii hore ka ahaa 40% waan ku guuleysanay naasnuujinta sanadkan aanu gaarsiino goobahaasi kastoo maanta halkan lagu qabtay Mansoor haddana waxaan filaynaa sanadada dambe in goobaha barakacayaasha xiriyaha aan ku qabano si hooyooyinkaasi haddii wareysiga aad u qaadaysid raadiye jaraa'id sidan ula fariiso qofka
wasaaradda wallahi markii imtixaanaadka la qaado waxaan ku qaadnaa qaab sidii ardayda looga qaadi jiray dugsiyada caadiga iska ilaali marka aad wareysiga qaadaysid inaad ficiladan samaysid wasaaradda imtixaanka waxay u qaadaa si sanadkiiba 2 jeer bay qaadaa imtixaan yar iyo imtixaan weyn baa la qaadaa mudan marka maxay ku dhacday arintaas wallahi waxa ku dhacday waad ogtahay in wallahi niyo dalka si aad ogtahay waxa ka jira arrin sida oo kale su'aalahaagu ha noqdaan kuwa gaaban oo macno leh intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii afraad ee maanta haddii la yiraahdo qaybta shanaad waxa noo soo socon doona wareysiga oo aanu si sharaxi doonaa habka wareysiyada loo qaado waa muhiim wareysiga maxaa yeelay qofku hadaanu garanayn qaabka wareysi qaadida wax badan ma samayn karayo fadlan subscribe deh haddii aad ku cusub tahay channelkan like saar haddii aad ka heshay comment bixi haddii aad su'aal qabtid haddii su'aal kale oo dheeraad aad qabtidna emailka dambe igala soo xiriir waadna la wadaagi kartaa asxaabtaada ee fadlan share garee mahadsanid